ujeeddada maanta halkaan iskugu nimid waxa weeyaan inaan codkayaga kor u qaadno, inaynu ummadda Soomaaliyeed gaarsiino, in aynu guddiyada maanta ka tashanaya masiirka ummadda Soomaaliyeed sida madasha wadatashiga oo kale aynu gaarsiino codkayaga oo ah in kursiga 104 uu yahay kursi qaab absolutely aan loo marin habkii loogu talagalay iyo habkii doorashooyinka maaragtay loo iclaamiyey. sidaa awgeed waxaynu codsanaynaa kursigaas tirsigiisa uu yahay 104 hob 104 waa kursi aan si xalaala doorashadiisa aysan u dhicin. waxaynu codsanaynaa kursigaas marka ugu horeysa in loo soo celiyo taladiisa ciddii iska lahayd, in tolkii iska lahaa loo soo celiyo, in doorasho xaq ah ay loo qabto. ninka hadda ku fadhiyo oo leeyahay kursiga waa loo boobay, dadkaasuu ka mid yahay, musharaxiintaasuu ka mid yahay, ha soo fariisto ahlan wa sahlan. haddii uu helo waa ku taageeraynaa, haddii aan ka helnana intoo kalean ka filaynaa. marka anigu baaqayga waxa uu si toosa ugu socdaa prime ministerka. Mr Prime Minister, waxaan ku leeyahay waxaana soo gaaraya warar la leeyahay kuraastii horey loo doortay ama sax ha ku dhacaan ama qalad ha ku dhacaan ama ha la boobaan, sidoodaan u daynaynaa. sidooda haddaad u daysid ogow dulmi cad baad ka gelaysaa qabaa'ilka Soomaaliyeed. waxaad la socotaa kuraastaas in la boobay. anaga khaas ahaan waxaana quseeya kursiga 104 habraacii loogu talagalay looma marin, dadkii iska lahaa waa laga wareejiyey, maaragtay nin baa loo xiray, manxiis buu keensaday, dadkii la tartami lahaa baa loo diiday. sidaa awgeed waxaan maaragtay si sharaf leh idinkaga codsanaynaa in kuraastii la dhacay oo uu ka mid yahay kursiga 104 loo soo celiyo dadkii xaqa u lahaa, doorasho xaqaana la sameeyo, iyadoo weliba supervision waxa la yidhaahdo korjoogtayn lagu sameynayo xafiiskaaga khaasatan iyo maaragtay beesha caalamkaba, in kursigaas korjoogto lagu sameeyo marka ay doorashadiisa dhacayso. midda kale waxaan leeyahay madasha musharaxiinta waad aragtaan waxa meesha ka dhacaya. shacabka Soomaaliyeed maanta intiisa badan idinkaa masala. haddaad ogolaataan in la yidhaahdo kuraastii la dhacay sidoodaa loo daynayaa, haddaad ogolaataan waxaad ogaataan dhanka nimankaas inaad noola mid tihiin. waxaan idinka codsanaynaa brasharkiina inaad ku saarto, beesha caalamkana waa la hadlaynaa. kuraastii la dhacay haddii sidooda lagu daayo, Soomaali waxay tiraahdaa iisheeg mahmaha baa jirta Soomaalida tiraahdo way shaqal dibigaa ku qusqaatay. haddaatan ogolaataan waxaad ogaataan kuwa dambana sida kuwa kale ay u dhaceen oo kale inay u dhacayaan. marka anaga cod dheer iyo geed dheer iyo geed gaaban buu u fulaynaa kursigaas in dadkii iska lahaa iyo tolkii iska lahaa loo soo celiyo si doorasho xaqa oo xalaal ay u dhacdo. waxaan codsanaynaa ugu dambeyntii waxaanu codsanaynaa maanta 16 milyan ilaa 17 milyan ilaa 18 milyan oo Soomaali ah ayaa waxa ay sugayaan go'aanada aad ka soo saari doontaan meeshaas. waxaad ogaataan haddii aad istiraahdaan dadkan waxba ma oga, Soomaali waxbay og tahay, indhahooda waa furan yihiin, dhagoodana waxbay maqlaan. haddii aad sida hadda aad wax ku wadaan aad ku sii socotaan, waxaad ogaataan inaad waddankaas burbur u horseedaysaan. ha laga hortago burbur waddanka ka dhaca.